Xiisadda dowladda federaalka iyo dowladda Jubbaland u dhaxaysa ayaa cirka isku sii shareeraysa iyadoo xaaladdu ay marba marka ka dambeysa ay sii cakrimayso, iyadoo ay natiijo la'aan ay ku soo dhammaadeen kulamadii dhexmaray Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo madax ka tirsan dowladda Kenya oo ay wada hadal ku lahaayeen magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya, waxaana laga hadlayay sidii la isugu soo dhoweyn lahaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladda Jubbaland. hase ahaatee shirkaasi ayaa waxa uu soo dhamaaday natiijo la'aan iyadoo oo labada dhinac ay ku ballameen kulamo dambe oo dib isugu arki doonaan si xaaladda halkaasi looga sii ambaqaado. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo shirka ka hadlay ama kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in aan marnaba la ogolaanaynin in madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam uu horseed ka sii ahaado hoggaanka Jubbaland. Magaalada Caruuse ee dalkaasi Tansaaniya oo ka socdo shir madaxeedka ururka bulshada bariga Afrika ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalkaasi Kenya William Ruto ay kaga wada hadleen xal u helista khilaafka dowladda federaalka iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, sida ay sheegayaan ilo wareedyo laga helay dhinaca fila Soomaaliya oo doonaya in madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam doorashadiisa uu ka laabto shirka madasha wadatashiga qaranna dib ugu laabto, taas oo aan suuragal ka ahayn dhinaca dowladda Jubbaland. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto oo maanta la wareegay shir guddoonka ururka bulshada bariga Afrika ayaa khudbadiisii waxa uu ku soo daray in hogaamiyayaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda ay yeelan doonaan kulan xal loogu raadinayo xiisadda ka dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda Kenya ayaa cayimin xilliga uu dhacayo kulankaasi iyo goobta lagu qabanayo. Haddii ay kulmaan oo xaqiiqo ay noqoto in shirkani uu dhaco, waxa uu noqonayaa shirkii ugu horeeyay ee toos ah ee dhexmara madaxda dowladda Itoobiya iyo weliba madaxda dowladda Soomaaliya tan iyo markii Addis Ababa ay Somaliland ay la saxiixatay heshiis afgarad ahaa kaas oo dhexaad u ahaa xiisadda gobolka ka taagan ee u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed waxaa lagu wadaa in ay kulan toos ah ay ku wada yeeshaan oo foolka fool ah dalkaasi Tansaaniya, balse ay ku wehelinayaan qaar ka mid ah madaxda kale ee gobolka. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa xaqiijiyay kulanka. William Ruto ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in hogaamiyayaasha Soomaaliya, Itoobiya, Kenya iyo Uganda ay qorsheynayaan inay yeeshaan kulan ay ka yeelanayaan yareynta xiisadda ka taagan gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan xiisadda u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa. Horey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga biyadiiday inuu la kulmo Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed isaga oo shuruud ku xiray in marka hore Itoobiya ay ka laabato heshiiska dhinaca badda, balse haatan lama yaqaan waxa isbedelay soona dedejiyay kulanka labada mas'uul dhexmaraya. Si kastaba ha ahaatee, waxaa horey u fashilmay isku dayo lagu doonayay in la isugu soo dhoweeyo labada dal kadib dadaallo uu sameeyay Turkiga, laakiin waxba kama aysan soo bixin. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Turkiga, Ruushka ayaa wada hadal dhinaca telefoonka ah yeeshay, waxayna ka wada hadleen dagaalka dib uga qarxay waqooyiga dalka Syria, halkaasi oo laga saaray ciidamada Bashar al-Assad ee Ruushka uu taageero, iyadoo weliba dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ee Turkiga uu taageero ay qabsadeen magaalada Xalab iyadoo deegaano kale oo istiraatiiji ah sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi Turkiga ee Anadolu. Bashar al-Assad oo adeegsanaya ciidamo shisheeye oo isugu jira Ruush, Iiraan, bariga Yurub, Afghanistan, Pakistan, Lubnaan ayaa marar badan ku eedeeyay Turkiga inuu doonayo inuu xilka ka tuuro oo uu ku hubeynayo kooxaha ka soo horjeeda ee Sunniyiinta. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ayaa weerar duqeyn dhinaca cirka waxa ay ka fuliyeen magaalada Rab ee koonfurta Lubnaan, iyadoo oo weerarka uu ku geeriyooday 1 qof, 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada dalka Armenia oo ka qayb ah ciidamada dalalka kala duwan ee uu keenay Bashar al-Assad gudaha dalkaasi Syria ayaa waxaa lagu qasbay inay ka baxaan magaalada Xalab kadib markii uu dhaqdhaqaaqa mucaaradka ah ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Xalab. Ciidamada Ruushka ayaa iyagana waxa ay isaga baxeen saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo Suqaylibiya ee waqooyiga baadiyaha Hama, sida laga soo xigtay warbaahinta Syria ee taageerta Bashar al-Assad. intaana waxaa ku dhan warkii aad kala socoteen Rasmi Radio. waxaa idin soo jeedinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto. intaan ku kulmayno warka lamid ah waxaan idinka tegaynaa sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.